excited to show you these new examples. I'm so excited to show you these new examples ayay tiri gabadhii oo ay tahay micnaheedu aad ayaan u xiiseynayaa inaan ku tuso tusaalayaashan cusub. Hey, watch it. Watch it iska fiiri ayay ku tiri. Watch outsna waa la yidhahdaa iyadoo lagu daro outs oo loo isticmaalo marka wax halis ay soo socdo iska eeg oo kale. Watch out. Oh my gosh, I'm so sorry, Kelsey. Oh my god ayay tiri oo qaabkanna loo yidhaahdo oh my gosh oo ay tahay micnaheedu yaa rabbi inta badanna loo isticmaalo sida qofku marka uu yaabo oo wax ka nixiyo kale ula kulmo ayaa loo isticmaalaa yaa rabbi. Oh my god. Ew, what the heck? You wear a wig? What the heck waa maxay yaabkan bay tiri. Heck waa erey ay u isticmaalaan dadka luqadda u dhashay marka ay yaabaan oo kale ay wax ka yaabiyo oo kale ay arkaan ay isticmaalaan. You wear wig ayay tiri waxaad xidhan tahay tima gamaca ku samaysa. Erey kale cusub isna waxa ku jira wig waa timaha ay isticmaalaan dadka ay bidaartu gashay ama se timahoo dhan ka wada tageen si ay dadka ugu khaldaan inay timo leeyihiin. Oh, well, Get this nasty thing away from me. Hey! Get this nasty thing away from me ayay tiri gabadhii oo ay tahay micnaheedu naga tuur shaygan xun. Nasty waa something very very bad waa shay aad iyo aad u xun marka get away na waa tuuristi marka waxay tii get this nasty out of me shaygan xun naga tuur waana timihii ay sidatay markii ay jiidhay dhulka ku dhacay ayay ka laaday oo ay tii naga tuur. Why would you do that? You got a problem? Why would you do that? Waxaad saa u samaysay ay ku tiri. Waxay ugu jawaabtay iyaduna you got a problem? Dhib baa ku haysta adiga. That's what I thought. That's what I thought. Taas ayaa waxaan ka fikiray. Next time bay tiri marka xigtaa. And next time, watch where you're going or I won't be so nice. Watch where you're going. Iska fiiri meeshaad u socoto. Or amase I won't be so nice to you. Kuma wanaagsanaan doono ay ka wado marka xigta markan waxaan kugu dhufanaya ama nabar baan ku gaarsiinaya kuma naxariisan doono ay ka wada. Hey, don't let Kelsey get to you. Don't let Kelsey get you bay tiri yee kuniyad jiminin Kelsey oo ah gabadhii la taagneed. Ever since her sister's been in the hospital, Ever since laga soo bilaabo bay tiri ilaa waqtigii her sister walaasheed on the hospital ay ku jirtay hospitaalka. she just has been different. She has been waxay ahayd different nooc kale ayay ahayd yacnihii waxay ka wadaa ilaa laga soo bilaabo waqtigii ay walaasheed hospitaalka ku jirtay gabadhan Kelsey ee sida xun ula dhaqmaysay dabeecadaheedu waxay ahaayeen wax ka gedisan caadigii saas ayay ka wadaa marka different waa wax ka gedisan wixii moogtay caadiga ahaa. This one right here is the ombre. waxay tiri this one right here marka halkan jaalay is waxa weeye ombre wig. Ombre wig waxa weeye hore waxaanu soo aragnay wig inay yihiin timaha maxay fake ah ee artificialka ay isticmaalaan dadka ay bidaartu gashay oo ay u isticmaalaan qaab inay dadka ku khaldaan inay timo caadi yihiin marka ombrena waa nooc ka mid ah waliba waa qaybta madowga iyo isugu jirta midabka kale. Wig. I like to match it with this butterfly clip. Love that. waxay tiri gabadhii I like it waxaan jeclahay match it with this butterfly clip inaan ku dhajiyo balonbaalistan yar timahay sheegaysaa marka ay ku xidhayso ayay tiri. Love that. After school, I'd love to help you design some of the wigs. Love that waan jeclay taabay tiri. After school kabacdi I would love waxaan jeclaan lahaa to help you inaan kaa caawiyo design inaan kula nashqadayo kula qaabiyo some the wig qaar ka mida timaha waana timihii marka aynu hore u soo aragnay ee fake ahaa. The wigs. Hey, look everyone. Look everyone
eeg cid kastaay amase fiiri cid kastaay. Beth has no hair. Her new nickname should be Bald Beth. Beth has no hair. Her new nickname should be Bald Beth, ayay tiri. Gabadhan yar bahdilaad weyn bay ku samaysay. Hore waxaynu soo ogeyn inaanay wax timaa lahayn oo ay ku qarinaysay tima markaa fake ah madaxeeda. Haddana timihii ayay kala booday waxayna ku leedahay iyadoo dadkii la hadlaysa Beth oo gabadha magaceeda ah has no hair, wax timaa ma laha. Her new nickname, naanaysteeda cusubi should be waa inay noqotaa Bald Beth. Beth bidaar waa inay noqotaa. Marka wax cusub Bald oo bidaarta ah iyo waxa ku jirta nickname oo laga yaabo inaad hore u taqaano oo kale naanaysta iyana weeye. Beth. Bald Beth. Dadkina waa ku qosleen waxayna ku yiraahdeen Bald Beth. Beth bidaar ayay ku yiraahdeen iyagoo kale. Beth saaxiibadeed ayaa hadashay oo tiri stop that, jooji taas. Stop that. Give it back. Give it back. Ii soo celi ayay tiri waana timiya ka qaaday ay ku leedahay soo celi. Is Bald Beth gonna cry? iyadoo ka sii ruwaayadsanaysa ayaa haddana waxay tiri it is Beth gonna cry. Beth mi ooyi doontaa. Markaa weli way ka maadsanaysaa. Cry? Say cheese. Say cheese ay ku tiri oo ah Mike Smell doolcadayn samee. Ereygan waxay isticmaalaan photographiska sawir qaadayaasha oo ku yidhaahda dadka sawirada ka qaadayaan say cheese oo ay ka wadaan in qofka sawirka gelayay uu ilkihiisa muujiyo ama sawir doola cadeeyo. Saasay ku yidhaahda markaa say cheese. Now the whole school is gonna know how ridiculous you look. The whole schoolkoo dhanu is gonna know wuu ogaan doonaa how ridiculous you look. Sidan foosha xun aad u eg tahay ay ku tiri. Ridiculous waa erey loo isticmaalo markaa qof uu sameeyo wax yacni lagu qoslo oo kale wax foolxumo oo kale uu sameeyo. Tusaale ahaan waxaan xidhan karaa oo kale shirt dabadna waxaan oran karaa do I look ridiculous at this shirt? Yaan ugu muuqdaa shaarkan wax yacni lagu qoslayo oo kale. Marka saasay ku tiri. Good morning class. Subax wanaagsan classka way tiri. Class, everyone turn to chapter 3. Everyone turn to chapter 3. Qof kasta hala soo baxo cutubka 3aad ayay tiri macallimadii. We're going to be learning fractions. We're gonna be learning fraction ayay tiri. Waxaynu dhigan doonaa jajab. Marka waa macallimadii xisaabta loo yaqaan jajabta ayay dhigi doontaa. Fractions. Oh my gosh, that's so Oh my gosh, bay tiri. Yaa ilaahi, that's embarrassing. Taas waa bixtilaad. embarrassing. What happened to her hair? What happened? Maxaa ku dhacay to her hair? Timaheedii maxaa ku dhacay? Look, that's her. Wuxuu ku yidhi eeg taas waa iyadii. What a freak. What a freak. Waa maxay qariibkan ayay yidhaahdeen. Look, it's our school's very own freak show. Look eeg bay ku tiri it is waxa weeye our schoolkeega very own freak show. Waa showgiisii amase waa bandhigiisii argagaxa lahaa ee iskuulkeega ayaa halkan ku yaala ayay ku tiri. Halkan ila soo fiiri ardayow aynu eegno freak show marka la israaciyo maxaa laga wadaa. Waayahay freak show waxa weeye historically horta taariikh ahaan ay dib ugu laabanaysaa. Referred waxay noo sheegtaa an exhibition of soo bandhigitaan lasoo bandhigi jiray people dad and animals iyo xayawaano kuwaasi oo with lahaa maxay lahaayeen dadkaasu unusual or abnormal characteristics dabeecado
aan caadi ahayn. yacni markaan ku leeyahay aan caadi ahayn waxaan ka wadaa qofkaas ama wuxuu physically muuqaalkiisa guud ayaa uu ka duwanaa dadka kale ama talentii u qarsoon ayuu lahaa oo dadka kaga duwanaa. marka waa taariikh ahaan marka waa taariikh hore oo la joojiyey hadda waxaanay ahaan jirtay show la qabto kaasoo lagu soo bandhigo xayawaanaadka iyo shakhsiyaadka leh wax ka duwan dadka kale sida in jirkoodu xubnahoodu yacni wax ka duwan ay ku yaalaan oo kale sida gabadhan imika bidaarta lahoo kale yacni waxyaabo lala yaabo oo kale la yimaada. Here, show your friends. Show your friends saaxiibada tus. Look! Hey, buddy! Hey Barry, iska waran saaxiib ay ku tiri you are famous caan ayaa tahay. wax cusub waxa ku jirta Barry. Barry micnaheedu waa friend, waa saaxiib oo qaab kaloo loo yidhaahdo saaxiib luqadda Ingiriiska. Barry ayaa ka mid ah. marka heyna waxa way iska waran oo kale how are you. marka waa how are you friend aad ka oranay see tahay saaxiib. Hey Barry ayaad oran kartaa qaab soo gaabina. marka qofka ay luqadiisu advanced tahay oo kale kuwan oo kale u isticmaalaya. You're famous! Why are you doing this to me? Why you doing this to me ayay ku tiri oo micnaheedu tahay maxaad tan iigu samaynaysaa shaygan maxaad iigu samaynaysaa aniga. Relax. I don't... waxay ku tiri relax steady I don't want you ma kaa doonayo losing your hair over this inaad timahaaga ku weydatan ma doonayo ayay tiri. don't want you losing your hair over this. Whoops, too late. whoops ayay tiri yaab waana ereyo loo isticmaalo qofku marka uu arko wuxuu la yaabo exclamation ayaa la yidhahdaa words. halkan waa idin soo dhigi doonaa. too late bay tiri waa xilli dambaba you already have hore ayay ku gashayba yacni bidaartii sheegaysaa. marka halkaas ayaa qof kala hadlay Kelsey magaceeda gabadhan hadlaysa weeye halkaas ayaa lagu yeeray. You already have. Kelsey! Come on, honey, we gotta go see your sister. Come on honey ina mari macaanta igu tiri we gotta go waa inaynu tagnaa siisaynu aragno your sister walaasha. waxaa tiri intaa gabadha halkaa kala hadlaysaa iyana waxay tiri oo jawaabtay coming waan imanayaa bay ku tiri coming waan imanayaa. Coming! Bye, bye. bye Betty bay ku tiri nabadgelyo maca salaama saaxiib. Buddy. Hey, sis. How are you? Hey sister ayay tiri how are you see tahay walaal. What's wrong Mom, what is wrong with her? hooyo maxaa ka khaldan iyada ayay ku with tiri. her? Why isn't she saying anything? Why sabab ma isn't she saying aanay u odhanayn anything waxbaba oo ay ka wado maxay la aamusan tahay hooyo. Chemo has been really hard on your sister, honey. Chemo has been really hard on your sister ayay ku tiri oo micnaheedu tahay dawadu way run ahaantii ku adkayd walaasha. waxa cusub waxa ku jira chemo waxa weeye chemotherapy ayay ka timi oo waa qofka uu ku dhaco xanuunka kansarku daweyntiisa. inanta halkan jiiftana waa walaasheed waxaana haya xanuunka kansarka halkan ay idiin soo saari doonaa chemo waxay tahay markaa. ila soo eeg markaa halkan chemotherapy magacoo dhammaystiran weeye ofan badanaa koodh waxa loo yaqaanaa chemo loo soo gaabiya isa cancer treatment waa daaweynta kansarka. that uses taasiyoo isticmaasha drugs dawooyin bay isticmaashaa to kill si loo dilo fast growing cell unuga si degdega u koraya. xanuunka kansarka waxaynu naqaanaa inuu ku dhaco selka unuga bini'aadanku ka samaysan yahay oo ka bilaabmo nooluhuba. si markaa looga hortago unugan ku koraya xawaaraha degdega ayaa la isticmaalaa chemotherapy. marka aynu soo eegno halkan. I know you haven't seen her in a while. I know you haven't seen her in a while.
waan ogahay bay ku tiri inaanad arag in muddo ah iyada. She lost her hair a few days ago, and She lost her hair few days ago. dhowr maalmood ka hor way weyday timaheedii, yacni timo way ka tageen. she hasn't smiled since. She hasn't smiled since. ilaa iyo waqti ma ay dhoola cadayn ayay tiri. Smiled since. Oh my God. I'm so sorry. I'm sorry, Maria. aad ayaan uga xumaay bay tiri Maariyay, oo ah inantan xanuunsanaysa ee jiifta. Mariah? I'll give you 2 time to talk, okay? I will give you 2 time to talk ayay ku tiri. waqti yar baan ku siinayaa ood kula hadasho. I will give you waxaan ku siinayaa 2 time to talk. waqti ood kula hadasho. ay ka wado waqti yar ayaan ku siinayaa ood kula hadasho. Talk, okay? Hey sis. Please don't be Hey sis ayay tiri. walaalo. Please fadlan. Don't be sad. ha murugoonin. sad. Don't you remember when we were little? Don't you remember? ma xasuustid miyaa bay ku tiri walaal. When we were little. markii aynu yaryarin ma xasuustid miyaa? We used to laugh and play all the time. We used to laugh. waynu qosli jirnay. and play ciyaari jirnay. all time. si joogta. You used to be so happy. We used to be so happy. aad ayaynu u faraxsanaan jirnay. What can I do to make you smile again? What can I do to make you smile again? maxaan samayn karayaa si aan mar kale kaaga qosliyo ayay ku tiri. You? What are you doing here? What are you doing here? halkan maxaad ka samaynaysaa ayay ku tiri. Here. Shh. Hey, Mariah. I'm Beth. One of the volunteers here. Hey Maria ayay ku tiri. I am Beth. anigu waxaan ahay Beth. One of the volunteers here. mid ka mid a shaqaalayaasha halkan. volunteer waxa weeye shaqaalaha ku shaqeeya bilaashka ee aan wax mushaara weli loo qorin. I brought you a little gift. I brought you a little gift. waxaan kuu keenay hadiyad yar. Gift. Which one do you like? Which one do you like? midkee jeceshahay ayay ku tiri. Here's how you put it on. Here is how you put it on. sidan ayaad u xiran kartaa ayay ku tiri. ereyga put on laba micno ayuu leeyahay ardayow. micnaha koowaad waa xidhasho. put it on that t-shirt. micnaha labaadna waxa weeye marsasho oo sida creamka oo kale ama daashiga oo kale. I wish I could put it on cream. waxaan jeclaan lahaa inaan marsado cream ama perform adarka oo kale. It's that easy. It is that easy. waa sidaa fudud ayay ku tiri. And we can even decorate it with some cute hair clips. And you can even xataa waad awoodaa decorate with inaad ku qurxiso timahay sheegaysaaye some cute hair clips. xoogaa biinan qurux badan. marka hair clips waxaa laga wadaa shay loo isticmaalo in timaha uu qabto oo aynagu u naqaano biin oo kale ay sheegaysaa. Clips. Do you want to try one on? ma doonaysaa inaad mid isku qiyaasto? ereyga try on waa markaad maro ama shay isku qiyaasiso inuu sayskiisu ku leegyaho kale.
erey cusubkaasaa ku jira. To try one on. Let's go with Let us go with aynu ku soconno this one midhkan oo ay ka wado midhkan aynu soo qabanno. this one. Can I put it on you? Can I put it on you? Ma ku xidhi karaa ayay ku tiri. Great. Wow. Looks really good on you. Looks really good on you. Runtii aad ayay kugu qurux badan tahay. What do you think? What do you think? Maxaad u malaynaysaa? Think. We can even decorate it with this cute butterfly clip. We can even xataa waynu decorate with kusii qurxin karnaa this cute butterfly clip. Biinkan quruxda badan balanbaalista marka waa biin qaabka balanbaalistoo kale u samaysan oo timaha lagu qabto ayay sheegaysaa oo ay leedahay timaha waynu kusii qurxin karnaa oo ku nashqadin karnaa. Do you like it? Do you like it? Ma jeceshahay? I love it. I love it. Waan jeclahay. I used to wear a hair clip just like this. I used to wear waan xidhan jiray hair clip. Biinka timaha ayaan xidhan jiray bay tahay just like this sidan oo kale. Hair clip xagga hore ayaan kusoo sheegnay waana shay loo isticmaalo in lagu qabto timaha. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Aad ayaad u mahadsantahay ayay ku tiri. Iyana waxay ugu jawaabtay you welcome adaa mudan. Oraahdan inta badan waxaa lagu jawaabaa ardayo markaad qof abaal u gasho uu qofkii kugu yiraahdo thank you so much aad baad u mahadsantahay waxaad ugu jawaabtaa you welcome baad ku oranaysaa. Sidoo kale waxaa jira alternatives kuwa kaloo la mid ah oo ay ka mid yihiin don't mention it ha sheegin oo kale it's not a big deal wax weyn maaha oo kale tanna waa mid ka mid a marka you welcome. I'll come see you tomorrow too. I will see you tomorrow too. Sidoo kale beri baan idin arki doonaa ayay ku tiri. Hey, wait! I wanted to say I'm so sorry for how I treated you earlier. Hey, wait. Isugaya ku tiri. I want to say waxaan doonayaa inaan idhaahdo I'm so sorry aad ayaan uga xumahay for now hadda how I treated early sidii hore aan kula dhaqmay markii hore aad ayaan uga xumahay hadda ayay ku tiri. Ever since my little sister's been sick. Ever since laga soo bilaabay ilaa waqtigii my little sister walaashayda yaru has been sick ay xanuunsanaysay. I haven't been the same. I haven't been the same. Ma aan ahayn isku mid ayay tiri. Yacnii qof yaan ahaayay shakhsiyadaydii way isbedeshay oo caadigii ma aan ahayn ay ka wadaa. It's okay. I know how you feel. It is okay. Waa caadi. I know how you feel. Wanugaysa dareemayso ayay ku tiri. My sister was sick too. My sister was sick too. Walaashiba way xanuunsanaysay sidoo kale. A few years ago, my family and I found out that my sister had cancer. Few years ago, dhowr sano ka hor, my family qoyskayga and I iyo anigu found out waxaan ogaanay that my sister inay walaashay had cancer. Waxaanu kansarku hayay ayaan ogaanay ayay tiri. She had to shave all of her hair off. She had to waxay ahayd shave inay xiirto all of her hair. Dhammaan timaheedoo dhan waxaa waajib noqotay inay xiirto. Waxayna sheegaysaa kabacdi markii xanuunkaa laga helay.
I'd never seen her cry so much. I never seen weligay maan arag her iyada cry so much oo aad u ooyeysana weligay maan arag. So much. So, I did the only thing I could think of to help my sister. So sidaa darteedna I did waan sameeyey the only thing halka shay I could think of and u malaynayay to help ina ku caawin karayo my sister walaashay. I shaved my head. I wanted to let her know that we were in this together. I shaved my head. Madaxaygi waan xiiray oo ay ka wada timahaygi waan xiiray. I wanted waxaanan doonayay to let her know inaan iyada ogeysiiyo waa walaasheede that we were in this together inaan arrinkan ka simannahay. waxayna sheegaysaa walaasheedii xanuunka kansarka awgii looga xiiray timaha ayay iyana u soo xiirtay timaha si ay u ogeysiiso walaasheed inay labadooduba ka siman yihiin arrinkan tima la'aanta. And she wasn't all alone. She wasn't all alone. Kelina ma ay ahayn. So you see, that's the reason that I'm bald. And after my sister recovered, So you see, waad aragtaa ee ku tidhi it is the reason waa sababta that I want waa sababtaanan timaha ula baxayn ayay ku tidhi. And after my sister kabacdi markii walaashay recovered ay bogsatayna I still shaved my head to help others like your sister know that they're not in this alone. I still shave weli waan xiiraa my head timahayga hope anigoo rajaynaya others dadka kale like your sister sida walaashayoo kale know inay ogaadaan that they are not in this alone inaanay arrinkan keli ku ahayn oo ay dad kale la weheliyaan. Wow. I can't believe it. I can't believe it. Ma aamini karayo. You're an amazing person. You are amazing person. waxaad tahay qof cajiiba. Thank you so much for helping my little sister. Thank you so much. aad ayaad ugu mahadsan tahay for helping my little sister. caawimidaad caawinayso walaashayda yar aad ayaad ugu mahadsan tahay. You're welcome. You welcome. adigaa mudan. Hey sis, I have a surprise for you. Hey sis ay ku tidhi oo salaan ah. I have surprise for you. waxaan ku hayaa la yaab shay aan kaaga yaabiyo ayaan ku hayaa ayay ku leedahay. innagu Soomaali ahaan waxaynu halkan isticmaalnaa bushaaroo kale bulkhayr leh halka iyagu dhaqankooda qofku marka aad shay aad kaga farxiso aad u hayso laakiin si aad doonayso inaad ka qariso aad isticmaalayso oraahda ah I have surprise for you. qofkiina ku oranayo what is it deedna aad ka farxinayso. I shaved my head. Because I wanted to let you know that we're in this together and you're not all alone. Oh my god. I shaved my hair. timahaygi waan xiiray because sababtuna ay tahay I wanted to let you know waxaan doonaya inaan ku ogeysiiyo that we are in this together inaynu arrinkan ka simannahay ama arrinkan ku wada jirno. And you're not all alone aanad kelina ku ahayn yaan kula wehelino. iyana way istaagtay waxayna tiri oh my god yaa rabbi. halkaa waxaa ku ekaaday daawade muuqaalkeeni aynu ka sameynayna filimkan turjumidiisa. waxaan rajeynayaa inaad filimkan ka faa'iiday erayo fara badan sidoo kale jumlado aad ka faa'iiday. muhiimadeennuna daawada waxay tahay in ingiriisidaadu khaasatan qaybteeda speakingku uu sare u kaco